السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلانتي بملك سجوكتان كسود هذا ورك قلمني التلفزيون KMN وحاد لا سعودين إنسان جوا إسرائيل قضاء بدر وقدر كورونا وكمدا مشروع هرمونتا مرينا ذا مقالة ذا السببية واحد بدن كبدلي بلعدا موقع يس السعود كهجاديت كيدتك مقالة ذا السببة كقبلك الشعب كهوض لقو دسي أيها لجهر جليتو لدى ملكامر دقمدا مبارك قبل كهداو داود يلنتاسي waxay hayeen qodobadii warka ugu door karoona haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan daawadayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan warkii oo fidsan mashruuca horumarinta marinada ee magaalada Addis Ababa ayaa wax badan ka bedelay bilicda iyo muuqa isu socodka gaadiidka ee dadka magaalada Addis Ababa faafaynta warkaasina ayna u talowno الريجة أو لقوا فليي كقبل كشعب كأيا لقيه رجلي تولدا ملكامر دقمدا مبارك قبل كداو ففاين تور كاسنا أنه طلعونه همانتا كرمر خلو شقاها أنا قولي معني قبلها وحوينا ما تولدا ملكامري حكتا لنا وحوينا حتى كينيا لو ذاكتا ومسافة دان أجرتا حرونتا دقمدا مبارك اللي جمع ملايو ويرام بقول كيلومتر أي كفوت هاي tuuladana waxa weeyaan lagu yaqaanay dhul waxa weeyaan oo mana ah oo waxa weeyaan bilaa biyo ah xilliga waxa weeyaan jiiralka inta ugu badan dhaamin badan iyo howlo badan lagu rafaaday ayaa si guud isku tashi waxa weeyaan dalka dibadiisa dadku dhashay gobolka oo ku nool waxa weeyaan daafaha qaasatan waxa weeyaan dawladda Kenya dadku ku nool inta ugu badan yihiin inay waxa weeyaan fakar la isku keenay xal u helida goobtan istiraatiijiga ah ee Malkaamari oo taariikh iyo maamuus ballaaran ay u leedahay bulshada ku nool ee gobolka Daawa ayaan si guud aan ku guuleysanay maanta waxa weeyaan aan dahfurno eelkii laga qoday waxa weeyaan maantan dadka waxa weeyaan ka soo jeeda gobolkan ku nool ay fakarkoodii iyo maalkoodii iyagana waxa weeyaan keeneen biyaan hadda arkaysaan ku filan tuulada degan iyo dadka iyo waxa weeyaan duunyadaba biyo ku filan ayaa laga helay beersagandigiina ay soo tuurayaan ugu yaraan waxa weeyaan 7.2 سكندي البرقسي باي صوتوريا بيان سجود كلي وها حل نقول دونان أنا مجالو دو ملكامري نفتر كذا حل باللارم بايوتها استراتيجي أنا قادرني نفتر كذا إنه حويان
malkamari ay noqoto magaalada saddexaad ee ka tirsan degmada Mubaarak maadaama istiraatiiji qorshayaashaas aan higsanayno higsiga annagaas inay magaalo toon ahaan waxa weeyaan qorshay u noqoni dhul daaqsimeedkan aad u qurux badan waxa weeyaan xoolaha duurjoogta ku noolna biyi ku falnaan lahaayeen ay ku noolan lahaayeen waa la helay marka aagu malkamari wuxuu noqonay marka aag la iskugu imaan doono daaqsin iyo deegaameyn ba labadaba hal u noqon doonay noqoni maadaama Kenya xal la wadaagaan xilliga jiilaalka iyo xilliga roobkaba dadka ay iswadaarsadaan daaqi waxa weeyaan biyahaba taas marka inay marka hal u noqoto noqoni si guud kulli waxaan halkaan maxad ballaaran aan ugu jeedinayaa waxa weeyaan ilaahaygi noo soo hortageliyay maanta aan ku guuleysano biyahan oo laga helo malkamari BR riga mitirkiisu dhan yahay 300 mitir ee laga helo ayaa mahaddas kale mahadda labaadna cidii fakarkan keentay cidii waxa weeyaan maalka dhaqaalaha keentay cidii hawshan fududeysay cidii tale tusaale iskugu timaaday dhammaan way mahadsan yihiin qiibaha bulshada ku nool gobolka iyo waxa weeyaan dalka dibadiisaba in fakarkan isku tashiga wax wada qabsiga in laga sugin dawladdu in waxa weeyaan wax laga qabto ama waxa weeyaan hool lagu fuliyo inuu loo jeesto marka meelaha miisaaniyadda dawladda aan gaari karaynin in miisaaniyadda waxa weeyaan qaybgal shacab ama tabarucaad ama waxa weeyaan ganacsato ama qurbi joog aan laga hergeliyo isku duwaha dhinaca caafimaadka ee u qaabilsan gobolka Doolo oo waraysi siiyay SRTV ayaa sheegay in isbedelkii kadib natiijooyin wanaagsan laga gaaray dhanka kor u qaadista iyo tayeynta adeegga caafimaadka marka si guud gobolka Doolo oo gobol aad u ballaaran baaxad ahaan oo ka kooban yahay 7 degmo 7 degmo marka caafimaadka jira waxay isku qaybsamayaan 3 qaybood 4 qaybood oo qaybsamayaan marka waxa weeyaan meesha ugu hooseysa ama meesha bulshadana ugu fara badan yihiin waa rugaha caafimaadka ama waxa loo yaqaan afka qalaad health positive kaas waa meesha koobaad waxa weeyaan bulshadana adeeg ay ka hesho meelaha ugu badan waxa weeyaan 110 ruga caafimaad baa ka jira 7 degmo gobolka 110 ka ruga caafimaad 8 kamid baan shaqeynayna inta kale dhamaantood waxa weeyaan way shaqeynayaan 8 ruga caafimaad waxyaalaha inta badan la shaqeynayeen waxa weeyaan waa sabab xagga shaqaalaha ugu maadaama shaqaaluhu aad iska yaraadeen bay u shaqeyn laayeen meelaha inta badan mudnaanta aan siino in adeeg fiican oo ka baxana meelahaas kuuqa waayo bulshada inta badan waa pastoralist waa dad waxa weeyaan xoolo dhaqato oo iskaga nool meelo fog marka in loo dhaweeyo rugaha caafimaadka oo shaqaalihii loo geeyo oo adeeg muhiimka loo geeyo waxyaalaha kubaadan mudnaanta aan siino si guud xafiiska caafimaadka waxa weeyaan deegaan ahaan federaal ahaan iyo gobol ahaan oo hadda mudnaanta si gooni ah u siinaya badan shaqaalaha goobaha ku jiraan la dhameystiro shaqaalaha rasmi ah goobaha la geeyo tayadoodana la hagaajiyo iyagoo mar walba la garab wado dhisidda garaadkooda aqooneed mar walba tababarro gaagaaban la siinayo iyo u geeyinta agabyada ugu muhiimsan hadda dhammaantood rugaha caafimaadka ka shaqeynaya waxaa saaran talaagadaha ku shaqeeya waxa weeyaan cadceed ama solar waxa weeyaan ka talaagadaha ku shaqeynaya cadceed oo la rabo inay dhammaan agabkii waxa weeyaan talaal dhammaantood ay bixiyaan marka goobaha rugaha caafimaadka waxa weeyaan waa 710 ka 8 ka mid ah shaqeynayeen tayadoodii iyo waxa weeyaan daawadoodii waxyaalahaas oo dhan si dhow baan oo la soconaa si waxa weeyaan bulshada adeeg aysan u waayin halka marka laga soo tago adeegga labaad ee ku soo xigaya bulshada ay helayso waxa weeyaan adeegga jiilka labaad loo yaqaan ama comprehensive health posting waxa loo yaqaan marka comprehensive health posting-na waa meesha qorshe ahaan la rabo in loo guuro oo adeegyadeenan kale hadda basic health posting ama rugaha caafimaadka adeegyada ay bixinayaan in looga wareego comprehensive health posting kaasoo ka yar weyn waxa weeyaan basic health posting uu ka weyn yahay dhisma ahaan uu ka badan yahay shaqaale ahaan uu ka badan yahay adeeg ahaan uu ka badan yahay marka goobahaas waxa weeyaan comprehensive health posting waxaa ka jira gobolkan 4 xarumood ka jira 4 xarumood si fiican bay adeeggeedu iyo nidaamkooda hawlahooda u wadaan shaqaalahooda waa wada dhameystiran yihiin marka hadda meesha kale ku xigtana waxa weeyaan meelaha loo yaqaan xarumaha caafimaadka ama health center marka health centeradana 18 health center baa ka jira gobolkan ama 18 xarun caafimaad baa ka jira 18 ka xarun caafimaad way shaqeynayaan si fiican bay u shaqeynayaan shaqaalihii baa jooga oo kala duwan qaarkood dhakhaatiir baa joogta oo xarumaha waliba degmooyinka gudahooda ku yaala hadda waxaa jooga dhakhaatiir si ay waxa weeyaan maadaama bulsho fara badan ay u adeegayaan oo rugaha caafimaadka ee ku yaala qabaleeyada dadka meelaha ay u soo gudbinayaan xarumaha caafimaadka ay yihiin waxaan si gooni ah mudnaanta u siinay in adeeggeeda la hagaajiyo hadday noqoto xagga shaybaarka
iyo haddii ay noqoto xagga shaqaalaha labadoodu aad baan hawiyaan aan mudnaanta u siinay waliba barnaamijkan hadda caymiska caafimaadka laga hirgeliyay gobolka 5 degmo ka midana mudnaan gooni ah inoo siinay oo dadkan aan caymiska gelinay xarumaha ugu faraha badan ee adeeg keeli doonaan waa xarumaha caafimaadka degmooyinka ku yaal marka in iyaga laftirkoodu adeeg fiican laga helo shaqaale fiican ay joogaan waxay noqonaysaa waxyaalaha lagu qasbayo inaan mar walba xaaladooda nidaamkooda aan la socon daawadayaal intaas waxaa ku eg warkii galabnimo ee telefishinka JMN waxaad la socodsiinaysay anigoo Aysir Ibrahim Aadan Israhabi intaan warkii kulmi doono waxaan kaga tageynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh